السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lesson 32 Part 1 casharkii 32aad qaybtiisii koobaad. Maxaa haddaba aynu qaybtiisii koobaad ku baranaynaa? Waxaynu ku baranaynaa telling the time in English. In aad waqtiga ku sheegto English. Halkan muxuu yiri what time said? What time said waa imisadii waqtigu. Marka aad qof weydiinayso what time is it maad leedahay. Waa imisadii baad leedahay. Marka halkan muxuu ku sheegay inay labadii buuraa tahay. Marka muxuu yiri it is 2 o'clock. Waa labadii oo buuraa o'clock marka waa gow waa wax buuraa bay ka hadlaysaa. Haddana muxuu yiri what time said waa imisadii waqtigu. Marka labadii mirir bay dhaaftay. Marka mirir dhaafto maxaad saad ugu hadlaysaa u sheegi waxaad leedahay it is 1:02. It is waxa weeye 1 waa hal past 2 hal mirir oo dhaafay labadii marka waa labadii iyo hal mirir. Maxaa yiri what time said waa imisadii waqtigu marka la saddexaad ay weydii. Marka muxuu yiri markana it is 2:02. It is waxa weeye 2 waa labo past 2 laba mirir bay labadii dhaaftay. Haye marka maxaa halkaad ka bilaabay? Waxaad ka bilaabaysaa labadii eeg way tahay. Halkanaad ka bilaabaysaa oo labadan dambe. Maxaa leeyahay marka it is 2:02 hadday tahay labadii 5 mirir oo kale maxaa leeyahay marka it is 5:02 waa 5 labadii dhaaftay. Marka waa inaad sidaa horto fahanto. Halkan muxuu yiri what time said waa imisadii. Marka muxuu yiri it is 10:02 waa 10 mirir oo ay dhaaftay labadii. Marka waa labadii 10 bay noqonaysaa. What time said ayuu yiraahdaa. It is 1/4 waxa ay rubuc dhaaftay labadii. Marka oran maysid 15 markan oran maysid. Oran maysid it is 15:02 halka 15 ka oran lahayd 15 waa quarter waa rubucdee. Marka maxaa leedahay it is 1/4 labadii rubuc bay dhaaftay. What time said waa imisadii. It is 27:02. It is waxa weeye 27:02 waxa ay dhaaftay 27 ayay dhaaftay labadii. Halka ayuu cashirku inoogu joogayaa. Waxaana lagaaga baahan yahay ardayow inaad qaybto waayo way iska fududahay qaybitaanka aad qaybayso waqtiga. Waayo markay labadii tahay inta ay dhaaftay ma sheegi marka ay yara cuslaanaysa waa marka quarter laga hadlayo rubuca marka loo gudbo badhka oo kale. Badhkana marka waxaan ku baran doonaa qaybta labaad insha Allah. Sidaas ayaynu balana. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.